بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور دنيا ودين من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الهادي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته وسار على نهجه القويم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. xalqadeennan diinigii waxa ay ku saabsan tahay min aadaab siyaam soomkeena aadaabta loo baahan yahay la ilaaliyo aadaabtaas oo laba qaybood isugu jirta qayb waajiba iyo qayb mustaxab sunnah min aadaab siyaam soomka aan soomanahay shahrul kariim bishan kariimka ramadaan in aynu ilaalino looga baahan yahay waa mid aad iyo aad u weyn jamiica al-islaam dadka islaamka laga rabo in soonkooda ilaaliyaan aadaabtiisa sida ilaahay nagu amray rasuulkuna ina faray sallallahu alayhi wasallam. soonku sidiisaba wuxuu ka mid yahay min arkaan al-islaam rugniyada waaweyn ee islaamku ka mid yahay waana afdalu al-cibaadaat cibaadooyinka afdalka ana waa ka mid yahay ee ilaahay caza wajalla dambi dhaafka iyo ridlihiisa ku soo jiida ama islaamka ilaahay uu ugu ballan qaaday cid u hogaansata ama ilaalisa soomkooda inuu rabbi ugu naxariisanayo ilaahay caza wajalla. marka shahrul kariim inagoo ku jirna tobankii dhexe ee rasuulku sallallahu alayhi wasallam inoo cadeeyay inay tahay maghfira dambi dhaaf oo rasuulku sallallahu alayhi wasallam wuxuu la bishan kariimka bilashadeeda wuxuu rabbi ku maamuusaa awalkeedu hore raxmad dhaxdhaxaadkeedu maghfira dhammaadkeedna cudq min annaar ayuu rasuulku ilaahay inoo cadeeyay sallallahu alayhi wasallam. marka bishan kariimka ah oo shahrul qur'aan bishii quraanka kariimka ilaahay soo dejiyay kama qaala tacaala shahru ramadaan unzila fihi alqur'aan bisha kariimkii waa bishii ilaahay soo dejiyay kitaabka kariimka munazalka ah ayaa dhammaanteen daawadayaal waxaan isku baraarujinaynaa inaan ka wada faa'iidaysano fursadda qaaliga ah ee ilaahay ku deeqay jamiica al-islaam. waa fursad sanadla ah oo sanadii dadka hal mar soo marta fursaddaasi ruuxa ay seegtana rasuulku sallallahu alayhi wasallam ama kaba faa'iideysan waaya wuxuu ku tilmaamay ruuxan khayr lahayn ama khayr oo laga xirmaaniyay waayo rasuulku sallallahu alayhi wasallam isagoo inoo tilmaamayay in aynu dadaalkeena kor u qaadno wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam saddex goor buu minbarkii uu ka khudbayn jiray nabigu aamiin 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 yiri markuu sii fuulayay rasuulku waxa la su'aalay saxaabadii jaliilka ahayd nabi allah saddexdii jeer aamiin tiri maxaa labadan macnaheedu muxuu ahaa id aamin u lahayd wuxuu rasuulku ku fasiray sallallahu alayhi wasallam macalinkiisii jibriil malakul jibriil oo macalinka waxyiga ahaa ayaa rasuulkiisa sallallahu alayhi wasallam u soo jeediyey bisha kariimka ramadaan ruuxa u bilato ee aan dadaalin in aadaabteeda ilaaliyo aadaabka soomka oo soomkiisaasi aan dambi dhaaf ka helin rabbi raxmadda rabbi aan ku galabsan inuu rabbi u naxariisto iyo dambi dhaaf aan rabbi xaggiisa ka helin bisha kariimka ah waa khayr laawe waxaad rasuulkii ilaahay buu jibriil yiri in ka ciqaabkiisa ilaahay ku fogeeyo aamiin buu aamiin baan buu qolada bil kariima oo bilatay oo ilaalin waayay amarkii ilaahay ilaalin waayay sunnii nabiga ilaalin waayay aadaabta islaamku laha ilaalin waayay ee in la ilaaliyo ay waajibka ahayd wuxuu rasuulku inoo tilmaamay inuu yahay khayr laawa kaasi qolada bishii kariimka ahayd dambigiisa ilaahay dhaafi waayay buu kaas in naarta ilaahay ku fogeeyo aamiin buu aamiin baan buu rasuulku sallallahu alayhi wasallam. waa kaloo macalinkiisa jibriil uu rasuulku soo qaaday mar labaad aamiintii labaad maqlaysa muu saxaabada ku fasiray wuxuu labadiisii waalid ruux soo gaadhay oo u samafali waayey baari noqon waayey oo labadiisii baad u samafali waayey qowlan wa ficlan qowl wanaagsan iyo ficil wanaagsan waalidkii kula noolaan waayey isna waa khayr laawe in ciqaabka alla ku fogeeyo aamiin buu yiri aamiin baan buu yiri rasuulku sallallahu alayhi wasallam oo aamiinta labaad maqlaysayna waxay daareed buu yiri macalinkiisa jibriil ayaa soo qaaday oo tilmaanigu siiyay buu ruuxa labada waalid u samafali waaya ee baari u noqon waalidiinta in ciqaabka alla ku fogeeyo waa khayr laawe ciqaabka in alla ku fogeeyo aamiin baan buu taa waxaan ka digaynaa daawadayaal dhammaanteen waalidiinta oo kale xaqooda ballaaran inaanu ilaalina la rabaa aynu baari u noqono qowlan wa ficlan aynu qowl wanaagsan iyo ficil wanaagsan waalidiinta kula dhaqanno aan ka digtoonaanase inaanu ku dhacno labada khayr la'aanta oo rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam ama kuwa loogu duceeyay ciqaabka alla in lagu fogeeyo inaanu ka fogaana la rabaa oo inu samafal iyo baari
qowlan wa ficlan waalidiinta kula dhaqanno qowl wanaagsan iyo ficil wanaagsan kan aamintii saddexaad rasuulku fasiray salliga sallallahu alayhi wasallam wa rasuulki ilaahi sallallahu alayhi wasallam marka la soo qaado magaca rasuulka sallallahu alayhi wasallam ruuxa ku maamuusi waaya ee kugu salli waaya isla wuxuu de rasuulku sallallahu alayhi jibriil u sheegay inuu kaasna khayr laawo yahay oo maadaama rasuulki ilaahi sallallahu alayhi wasallam uu maamuusi waayay subadana ijlaal iyo tawqiir siin waayay salligiisii sallallahu alayhi wasallam soo qaadi waayay agtiisa aanu qiimo weyn kalen xabiibku kaasna waa khayr laawo wuxuu yidhi isna ciqaabka in lagu fogeeyo aamin baan buul marka daawadayaal aadaabta soomka inagoo wax ka tilmaami doona aadaabta labada qaybood baan u kala qaadnay qayb wujuub ah iyo qayb sunno ah wujuubka waxaa ka mid noqonaysaa in ruuxa saa'imku ilaaliyo waxyaabihii ilaahay waajibay dhammaan cibaadooyinka ilaahay nagu waajibay ee qowliga iyo ficligaba ayaa la rabaa in la ilaaliyo oo ay ka mid noqonayso min iqaamati salaa oogista salaada oo kale waxay ka mid tahay tiirarkii islaamka rugniyada islaamka ruuxa saa'imka ee sooman ee salaadayn aan salaad tukanayn waxaa xaqiiqo ka muuqanaysaa in islaamnimadiisii ay kala dhiman tahay oo islaamnimadiisii ay wax weyn ka maqan yahay maadaama tiirarkii islaamka uu badala ka maqan yahay aanu oogeyn maanu sooman yahay mana salaadayo marka waxaa linaga rabaa inaynu ilaalino salaada oo kale waa mid rugniyada islaamka ee ilaahay nagu amray inaynu ilaalino nolosheena buuri waayo rasuulka ilahay wuxuu ku amray xaalatul khoof waqti ay cabsi jirtay caadigii uu diinta faafinaya xabiibku ayaa ilaahay ku lahaa aydan kariimka qaala tacaala waidaa kunta fiihim faaqamta lahum asalaat faltaqum daa'ifatu minhum macaka walyakhuduu aslixatahum ilaahay baa ku amray rasuulka sal ly wasalam xaalatul khoof iyadoo cabsi ay jirto waqti cabsi ay jirtay oo kufaarta ay labada ka cabsanayeen saxaabadii rasuulkuba ayuu ilahay ku amray haddana salaadii oo kale inaan laga tegi karin haddii aad ilahay wuxuu leeyahay aad ahaato salaadii haddii loo aqimo oo waqtigii salaadu gaadho loo aqimo salaada oo adna xabiibkii allow asxaabta macooda tahay buu ilaahay leeyahay haddaad tahay dhexdooda salaadiina loo aqimo faltaqum daa'ifatu macaka saxaabadu qayba kula tukato ayuu ilahay ku amray oo digtoonidaadu ha foojignaato oo mar walba waxaa rabaa islaamku inuu digtoonaado oonu isdhiganin oo cadowgiisa labada aanu baylah ka helin ayaa la amraya islaamka caam ahaan waana aayadda kariimkii waxay la hadlaysaa caalamulislaam islaamka oo dhan iyo zaman walbana waxaa la rabaa dadka islaamka inay digtoonaadaan oo ina cadowgoodu baylahan ka helin mar walba inay digtoonaadaan oo nabadgelyadooda iyo ilaashimahoodu inuu digtoonaado waa mid diintu ay farayso taasaad ka fahmaynaa in salaada oo kale rasuulkii maadaama ilaahay ku amray xaalatul khoof inuu ilaaliyo marka nabadgelyo ay ka jirto sida aan ku jirna maanta oo kale dal nabadgelyo ah dal deganaansho ka jiraan dowladi ka jirto waxa waajib ah in madax iyo shacbiba loo dadaalo amarka ilaahay iqaamati salaa salaada oogisteedii oo aynu dhammaanteen buuxino aynu camiro buyuudda ilaahay baa lig waayo koladaas aynu saamiinahay waxa u weyn tiirarka islaamka ilaalintooda laynaga rabaa sida salaada oo kale in la ilaaliyo habeenkiina qiyaamu leyl aynu masaajidada camirno maalintiina aan soonkeena ilaalino oon ka ilaalino soomkeena wixii wax yeelay dhammaanba waxaa kaloo aadaabtii soomkeena kamid noqonaysaa in laga digtoonaado jamiicu maa xarama allah wa rasuula wixii ilahay naga xaaraam yeelay dhammaan inaynu ka dheeraana la rabaa madaxantii iyo laqwigii iyo beentii intaba iyo xiqdiga iyo xasadka intaba laynooga digay oo inaynu ka dheeraana la rabaa oo aynaan ka digtoonaano in aynu soonkeeni si uu u ilaashanaado waa inaan ka digtoonaanaa xanta iyo laqwiga beenta waayo rasuulku wuxuu laha sala allahu alay wasalam ruuxa aan ka tegin qowl zuur iyo ku dhaqankiisa ilaahay muraad kamale dacaamka iyo sharaabka u ka tegay buu waxaa inaga rabaa maadaama aynu saa'imiin nahay inaynu beenta iyo xanta iyo laqwigaba ka ilaalino soomkeenna si uu soomkeennu u noqdo soom ilaahay xaggiisa ilaahay aqbalo oo ridihiisa aynu ku gaadhno sida ilaahay noo cadeeyey sal lla alay wasalam ee ilaahay ku lahaa xadiisulqudsiga laquluufu fa min saa'ibi adyabu cinda allahi min riixi lmiski rasuulka ilahi baa xadiisulqudsi ilahay ka wariyey ku lahaa kuwa sooman urta afkooda ka soo baxdaa waxay ka udgoon tahay xagga ilaahay caza wajalla wax wala udgoon baa bul waxaa kaloo aadaabtii soomkeena ka mid noqonaysaa suxuurta oo kale waxay ka mid tahay min aadaab siyaam in lala yimaado rasuulka amray sala allahu alay wasalam tasaxaruu fa ina suxuura baraka wala rasuulku suxuurta la yimaada suxuurtu waa barako oo soomkiina maalintii aad soomantiin bay difaac u tahay gaajadu difaacidi ka yahay suxuurtu waana la amray inaynu la nimaadno waana aadaabta soonka ee sunnihii rasuulka sala allahu aleyh wasalam
waxaa ka mid ah aadaabtii soomkeena kamid noqonaysaa tacjiilu lfitri in afurka loo degdego galabtii marka eedaamka maqribka laga eedaamo idaacadda laga adimo masaajida aynu ka maqlo muadimiinta waxaa la rabaa dhammaan in loo degdego oo aynu afurkeena u degdegno oo aynaan gelin salaad aan la gelin horta laga afuro soomkii waayo rasuulku waxaa ka sugnaaday sal alay wasalam kaana rasuulu llahi sal ly slm yufdiru qabla an yusallia calaa rudabaatin fain lam takun rudabaatin fain lam takun rudabaatin fatamaraatun fain lam takun tamaraatun xasawaat min maain rawahu axmed abi daud watirmidi rasuulka ilaahi sal lla alay slam waxa uu ahaa aadaabta soomka inagoo raacayna qeybta sunnaha ah marka galabtii la eedaamo rasuulku sal allahu alay wasalam wuxuu ku salaada ma geli jirin wuu ka afuri jiray wuxuu ku afuri jiray marka hore timir xasiida haddii taa waayo timir caadi ku afuri jiray hadduu timir waayana biyo ayuu ka gaban jiray oo xabiibku salaad ma geli jirin ilaa uu ka afuro soomkiisa innagana dadka islaamka oo dhan waxaa la rabaa in aan ku dayano rasuulka ilaahay sala allahu alay wasalam oo aynu la nimaadno galabtii marka eedaamku dhaco aynu ka afurno waayo rasuulku sal alay slam wuxuu lahaa ummadaydu khayr kama suujo maa cajilu alfitri laa yazaalu naasu bikhayrin maa cajilu alfitri muttafaqun caleyh xabiibki ilahay baa ummadaydu khayr kama suusho inta ay afurka dedejinayaan buri oo ay markay eedaamka maqlaanba ay afurkooda u degdegayaan buri waxaa kaloo ka mid a aadaabta soomkeenna inaan galabtii ilaahay barino muraadaheenna waayo rasuulku sala allahu alay wasalam waxau lahaa saddex lama celiyo dacwadooda imaamulcaadil imaamka caadilka ah lama celiyo dacwadiisa ilaah waa ajiibaa wasaa'im ruuxa saa'imkaana galabtii markuu afuraayo lama celiyo dacwadiisa wuxuu ilahay weydiis waa la aqbalaa ruuxa la dulmana ilaahay dacwadiisa waa ajiibaa bari oo ilaahay ballan buu ku qaaday inuu dhaar buu ku maray ruuxa la dulmo inuu u kaalmaynayo la ansuranaka walow bacda xiin buu rabbi leeyahy waan kuu kaalmayn labada waqti labada aan fogeyn marka daawadayaal inagoo ku jirnaa tobankii dhexe ee dembi dhaafka ahayd waxaa la rabaa in soomkeenna aynu ilaashano aynu ilaahay ka rajayno makfiro iyo dembi dhaaf marka ilahi waxaan ka rajaynaynaa oon isku baraarujinaynaa inaanu ilaano soomkeena dhammaanteen waxaa kaloo isku baraarujinaynaa qiraa'at alqur'aani alkariim kitaabka ilahi akhrintiisa waa layna farayaa maadaama bishii uu soo degay qur-aanka uu yahay waxaa kaloo ummadda aan ku baraarujinaynaa in saa'imiinta la afuriyo oo rasuulku wuxuu lahaa ruux sooman afuriyey waxa uu leeyahay kaa sooman xasanaadkiisa oo xasanaadkaas saa'imkuu lahaa leeyahay oo kale ayuusan ilaahay ku deeqa marka waxaan leenahay bishii kariimka tobankii dhexe ayaynu ku dhex jirnaa ee dembi dhaafka ahayd ilahay waxaan ka rajaynaynaa dembi dhaaf allah inoogu deeqo soomka allah inoo ilaaliyo dembi dhaaf dhammaan allah inoogu deeqo ilaahay haynoo barwaaqeeyo firdowsa inta degta macooda allah inaga yeelo beledkeennana allah barwaaqeeyo beledan aaminan xaraman aaminan allah ka yeelo bilaadaha islaamka oo kalena dhammaansa allah ka yeelo meeshii dhib ka jiraba ilaahay ha dejiyo ilaahay dalka haynoo ciseeyo dowladda allah ha ciseeyo wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh